Cristiano Ronaldo oo mar kale weerar afka ku qaaday Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ayaa mar kale soo hadal qaaday doodii u dhaxaysay isaga iyo Lionel Messi, isaga oo hoos u dhigay muhiimadda koobka adduunka ee Argentina ku guuleysatay sanadii 2022. Waraysi uu siiyay Piers Morgan ayuu ku sheegay in Argentina ay horay u ahayd dal ku guuleystay koobkan ka hor intaan Messi xitaa uusan soo bixin. Ronaldo wuxuu yiri Argentina imise koob adduun ay ku guuleysatay ka hor Messi. Haddaba waa dal horay ugu guuleystay, taasi la yaab ma lahan, balse haddii Portugal ay ku guuleysato adduunka oo dhan ayaa yaabi doona. Argentina waxay ku guuleysatay 3 koob adduun 1978, 1986 iyo sanadii 2022, waxaana guushii koobka adduunka ee Qatar loo arkay mid kor u qaaday magaca Messi, kana dhigtay mid kamid ah xidigaha ugu waaweyn taariikhda kubadda cagta. Dhanka kale, Ronaldo oo 40 jir ah weli kuma uusan guuleysan koobkaas, inkasta uu haysto inta badan biladaha kale ee heer kooxeed iyo heer qaran. Ronaldo ayaa sidoo kale sheegay in koobka adduunka uusan ahayn cabirka kaliya ee lagu kala saaro ciyaaryahanka ugu wanaagsan taariikhda, balse wuxuu cadeeyay inuu weli doonayo inuu koobkan la qaado xulkiisa Portugal, isagoo yiri kooxdu waxay doonaysaa inay adduunka ka yaabsato tartanka soo socda ee 2026. Hadaladan cusub waxay sii hurinayaan tartanka labada xidig ee ugu saameynta badan adduunka, tartan ku saleysan sharaf, taariikh iyo maqaamka ugu sareeya kubadda cagta. maalin wanaagsan saaxiibayaal, meel baad nagala socotaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan u hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.